بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قيمة بدن سيمستر 5 midwifery halkan ka salaamaya insha Allah waxaynu inoo socdo marka 10keeni vitaminka qaybta saddexaad marka ay qaybtii ama intii nooga harsanaato water soluble vitamins insha Allah maanta aynu sii wada doonaan qaadan doonaa waxay maalinta hore ay ka soo hadalnay vitamin B1 iyo B2 iyo B3 insha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa vitamin B5 B6 B7 B9 B12 iyo marka vitamin C ama ascorbic acid loo yaqaan insha Allah taas raacin doona halkaasina naga dhamaan doona marka nutritionka marka ama qaybta loo yaqaan nutrients waxa inagu soo hari doona marka malnutritionka baa marka insha Allah inoo soo hari doona aynu qaadan doona marka vitamin B5 waxa kale loo yaqaan pantotonic acid waxa kale loo yaqaan pantotonic acid وانا فيتامين كمل بيها مركا وحو كمid yahay waa isa water soluble vitamins ayuu kamid yahay. It was discovered by Roger J. Williams in 1991 marka vitaminka waxa ogaaday ama helay marka ninka dhakhtarka loo yaqaano oo nutritionist ah marka Roger J. Williams kaas ayaa wuxuu helay 1919 tissue extracts from a variety of biological materials marka tissue ama marka jirkeena wuxuu kala soo baxaa qaybo kala duwan oo markaas sida funguska oo kaleeto ayaa meelaha ugu badan ee laga helo marka laga yimaado xagga cunnada iyo meelaha marka laga yimaado marka the word derived from Greek word bantos waxa laga soo xigtay ama uu ereygan ka yimid erey Greek ah oo macnihiisana uu yahay marka everywhere meel kasta marka laga heli karayo shaqooyinku inuu qabto vitamin B5 waxa weeye dhowr shaqo ayuu noo qabtaa inkastoo vitaminada uu yahay uu ku jiro marka vitamin B complex uu kamid yahay waxyaalo badan aan laga qorin oo marka ahmiyad gooni aan marka xagga nutritionka la siisin hasa hatayna waan ka hadlaynaa marka insha Allah essential for metabolism of carbohydrate fat and protein wuxuu muhiim u yahay marka in jirkeena uu tamar uu kala soo baxo oo la burburiyo sida marka sonkortii iyo dufankii iyo proteinadii. They are very helpful in cholesterol metabolism wuxuu kale aad inooga caawiyaa in la burburiyo marka dufanka loo yaqaan cholesterolka kaasoo marka jirka ka ururi lahaa ayuu kaasoo markaasi aad iyo aad inoo muhiim inooga yahay marka inaga caawiyaa marka wuxuu kale inaga caawiyaa kor u qaada bogsadka nabarrada accelerates marka wound healing vitaminka wuxuu kale muhiim inuu yahay bogsadka nabarrada ayuu marka inaga caawiyaa. It also used as waxa kale loo isticmaalaa anti stress factor vitamin B5 kan oo kaleeto wuxuu muhiim inuu yahay waxa loo yaqaan inuu stresska ama cadaadiska ama dhibaatooyinka marka qofka culayska ama isku buuqa uu hoos u dhigo wuxuu kale hoos u dhigaa allergies marka waxyaalaha qofka uu xasaasiyada uu ku qaaday kaleeto ama jirka wixii soo galo uu foreign body u noqon lahaa uu aad uga jawaab celin lahaa kale hoos u dhigaa headache marka madax xanuunka kale hoos u dhigaa arthritis ko kale naga caawiyo qofka marka ruugaga ay xanuunaan wuxuu kale oo naga caawiyaa marka xanuunada maqaar ku dhaca sida psoriasis ko kaleeto wuxuu naga caawiyaa oo hoos u dhigaa marka hurdo la'aanta sida xiiqda sida infectionada marka have all been treated with same effectiveness using vitamin B5 lama waxayna dhan si isku waxtar leh ayaa waxa loogu daweeyaa vitamin B5 ka marka way meelaha laga helo waxa kamid sida avocado kaleeto ayaa kamid ah sida kalluunka noocyadiisa kale kamid ah waxa laga helaa sida funguska noocyada loo yaqaan marka mushroomka waxa laga helaa marka sida xabugta ama tamaandhada kaleeto waxa laga helaa marka waxa loo yaqaan bocorka oo kaleeto waxa laga helaa iyadana marka hilibki waxa laga heli karaa marka burcadka oo kaleeto laga helaa waxa laga helaa marka qudrada cagaaran oo dhan waxa laga helaa waxa loo yaqaan asalaatada waxa laga helaa oo kale spinachka ama koostada waxa uu naqaano marka waxyaalahaas oo dhan ayaa laga helaa waa green vegetable qudrada cagaaran naway aad ayaa hore uga soo hadalnay in laga heli karayo maalinta qofku wuxuu u baahan yahay marka men 10 mg buu u baahan yahay gabadha waxa u baahan tahay 10 mg childrenka waxa u baahan 5.5 mg ay u baahan yihiin. Vitamin B6 ayaan hadda soo galeynaa waxa kale loo yaqaan Pyridoxine waa vitamin kale biyaha ku milmo uu jirkeena aad ayuu ugu baahan yahay
shaqooyin dhowr ah ayuuna inoo qabtaa vitamin B6 ka shaqooyin dhowr ah ayuu inoo qabtaa shaqooyinkaas waxaa ka mid make antibodies oo kale jirka inuu naga caawiyo vitaminkan uu qofka jirkiisa uu samaysto difaac markaa antibodies are needed to fight for many disease antibodies waxaan uga baahanahay inuu la dagaalamo marka xanuuno fara badan oo jirka markaa iyada ka dhex dhici lahaa qaas ahaan jeermisida jirka soo weerara maintain normal nerve function wuxuu joogteeyaa oo kale shaqadeeda u hagaajiyaa shaqada markaa habdhiska neerfaha make hemoglobin wuxuu ka qayb qaataa vitamin B6 inuu markaa la sameeyo hemoglobin waxay aad muhiim ugu tahay inuu qaado sida oxygen-ta waxaana laga dhaxlaa hemoglobin ku dhex jirta waxa loo yaqaan red blood cells to the tissues way hemoglobin sida ogtihiin markaa waxay ka samaysan tahay waa hem oo ah waxa loo yaqaan hem oo markaa waxa loo yaqaan viral ring ah iyo waxa ka samaysan globulin chain oo ah markaa protein marka hemoglobinta in la sameeyo ayay muhiim ugu tahay hemoglobinta waxay naga caawisaa in oxygen markaa ay ku dhigto iron kadibna oxygen-ta ay noo qaado keep blood sugar waxa loo yaqaan waxay inoo ilaalisaa sonkorta dhiiga ku jirta ayaa xaddi markaa normal ay ku haysaa marka xaggaas waxay naga caawinaysaa waxa loo yaqaan qofka macaanka qabo kale vitaminkan kale wuxuu ka dhigaya marka stable inuu sonkortiisa ahaato assist the balancing of sodium and potassium levels waxay naga caawisaa in isku dheelitirnaato marka sodium iyo potassium levelki waxay kor u qaadaa in la soo saaro marka RBC marka red blood cells production ki unugyada dhiigga cas waxay kaleeto ka qayb qaadataa soo saaritaanka marka serotonin dopamine and noradrenaline waxa loo yaqaan iyo adrenaline neurotransmitters in la soo saaro kuwaas ayay ka qayb qaadataa ay muhiim ay u tahay marka iyada way vitamin B6 waxa aad inooga caawisaa in lagu daweeyo premenstrual syndrome calaamadaha ka horeeya marka xilliga caadada oo kaleeto aad ay muhiim ay inoogu yihiin marka iyada sida qofka inuu anxiety u dareemo kaleeto qofkii uu dareemo baqdin depression iyo jabkii qofka irritability inuu marka cara xooggan oo kaleeto uu dareemo qofka kaar inuu dareemo calaamadahan ka horeeya xilliga caadada oo qofka iyada madax xanuunka faraha badan waxyaalahaas oo dhan vitaminkan kaleeto qofka uu qaato vitamin B complex ay ku helaya isku jiraan haduu qaato kale qofka ama qudrada cagaaran calaamadahaas hoos buu dhigtaa marka waxa la yiraahdaa vitaminka mood stabilization ka ayuu ka shaqeeyaa marka mood stabilizer in uu okay haddii aan ku noqdo vitamin B6 oo kale waxyaalaha uu noo qabto waxaa ka mid ah oo insha Allah halkan inoogu jiraan madaya waxaa ka mid ah wax loo yaqaan inuu nausea and vomiting oo kale u daawo uu kayo kale xilliga morning sickness ka xilliga walaaca oo kaleeto inuu aad iyo aad wax uga qabto marka waana inta badan waxa looga daraasad la sameeyay dumarka xilligaas walaaca ku jira first trimester-ka hore nausea and vomiting la in la siiyay u kadibna wax tar fara badan oo u yeeshay cunooyinka laga helo waxaa ka mid ah both animal and plants oo laga helaa gabi ahaanba marka onti xoolaha iyo dhirta labadaba laga helaa the animal foods animal foods include waxaa ka mid ah sida digaaga kale sida kalluunka sida kaliyaha kale sida beerka sida marka beedka oo kale waxyaalahaas oo dhan baa laga helaa marka xagga dhirtan ka hadlayna waxaa laga helaa wet germ marka oiliski soybeanska brown rice panetiska marka waxaa laga helaa qamandida oo kaleeto waxyaalahan u naqaan waxaa laga helaa markaasi gidirada marka noocyadooda kala duwan sida briiska oo kaleeto briiska dhammaan vitamin B oo dhan waa laga helaa sida waxaa laga helaa kale wax loo yaqaano looska oo kaleeto sida waxaa laga helaa oo kale qudradda inkastoo process ay tahay laakiin waxa aad muhiim meelahan ka sii heli karna waxaa ka mid ah sida fungus oo kale vitamin B6 waa laga helaa qudradda meelaha laga helo waxaa ka mid ah sida musk oo kale ka heli karnaa sida waxaan ka heli xabxabka oo kaleeto sida waxaan ka heli karnaa caanaha oo kaleeto caanihi baa laga helayaa waxaa laga helay marka different source kala duwan ayaynu ka heli karnaa haddii vitamin B6 deficiency uu dhaco haddii yaraanshiyo uu yaraado oo kale jirku yaraado combination with deficiency other B complex vitamins waxaa dhici karta inuu raaco marka B complexki marka vitamin B oo kaleeto sida uu yaraado kaleeto inuu yaraado kuwaas soo raaci karaya haday yaraadaan jirka yaraadaan nerve systemka kale nervous disturbance dhibaato xagga nerveska iman karto qofka irritability qofku wuxuu dareemayaa marka ay wax loo caraf fara badan ayuu dareemayaa qofka hurdo la'aan yalaalugada iyo matag oo kale haduu jirka ku yaryahay ama xilliyada kale
ahayd soo sheegnaan kaloo kale nausea and vomiting kan waxay xoog saaran yihiin oo kale xilliga walaca oo kaleeto ama morning sickness ka u naqaan muscle weakness muruqyada waa daciifaya qofka fatigue qofka wuxuu dareemaya wax loo yaqaan daal qofka convulsions ma ku aragnay ilmi green inay sameeyaan ayaa lagu arkay ciyaalka yaryar marka infantiska carruurta sanadka yar dermatitis ka oo ayaan ku aragnaa marka maqaarka kaleeto in marka xanuun maqaarka inaan ku aragno qaasaan erida indhaha ku wareegsan karo inay casaato oo barato oo adkaato wuxuu qayb ka yahay dhiig la'aan inuu keeni karo sababtoo RBC production ka qayb qaadanaya hemoglobin oo kale production ka qayb qaadan kara labada meesha ay ka baxaan dhiig la'aan ayaa imanaysa wuxuu keeni karaa oo kale waxa hadda meesha uu ka baxay kidney stone baa dhici karta wax loo yaqaan kidney stone ayaa iman karta marka kaliya dhagax ku samaysan maalintii qofku waxa looga baahan yahay 2 mg woman amine children 1.7 mg infants 0.1 ila 0.5 mg ayuu qofka maalintii uga baahan yahay inuu ka helo vitamin B7 hadaan ku socono waa B7 waxa loo yaqaan vitaminka toddobaad ayuu noqon marka iyada B-da waxa loo yaqaan biotin waxa la yiraahdaa biotin waa water soluble marka B complex vitamins that helps the body to marka wuxuu ka mid yahay vitamin B-yada kuwaasoo biyaha ku milmo wuxuu jirka ka caawiyaa marka inay tamar oo kala soo baxno proteinska iyo waxa loo yaqaan marka glucose-ka sonkorta iyo proteinada waxa loo yaqaan vitamin B7 la yiraahdo kaleeto vitamin H vitamins H baa loo yaqaan vitamin B7 baa la yiraahdaa biotin baa la yiraahdaa saddex magac isaga iskale haddaba biotin sometimes waxa lagu yiri karaa vitamin H binary marka the H comes from waxay ka timid German word waa erey German ah kaasoo marka iyada laga jeedo wuxuu vitaminkan door muhiim leh oo ka qaata hair and skin marka maqaarki iyo waxay u naqaan marka iyo wax loo yaqaan wuxuu wax uu ka qaata marka iyo wax loo yaqaan iyo timihi heart and heart bal ira marka sababtaas H loogu bixiyo human body cannot synthesize biotin ma samaysan kara bini'aadamka waa only bacteria molds yeast algae marka meelaha uu kali karayo bacteria kamid ah sida funguska noocyada molds yeast kamid ah sida algae kamid ah certain plants can make it dirta qaarkood baa samaysan karto oo ka heli karnaa okay so the diet needs to supply it marka waxa u baahan cunnada in cunayna inuu vitaminka oo la socdo inuu la socdo marka biotin deficiency inta badan waa rare vitamin B7 marka bugto waxay ka qorayaan uu iska yahay waana vitamin inta badan aad naadir u ah wuxuu keenaa wax loo yaqaan xagga culayska dhibaato keeni kara waxa kamid ah cidiyihii iyo timihii oo kale inay qofka ka yar daataan oo kaleeto skinkana uu yar maqaarkana uu yar adkaado vitaminka wuxuu door muhiim ka qaataa anti aging baa leeyahay xagga daada oo kaleeto okay but some groups may be more susceptible dadka qaarkood ayaa u nugul cunooyinkan ka heli karna waxaa ka mid ah vitamin B7 markaan sheegayna waxaan ka heli karnaa sida eggska oo kale beedka baan ka heli karnaa sida fungusyada qaarkood baan ka heli karnaa waxaan ka heli karnaa wax loo yaqaano canabka baan ka heli karnaa waxaynu ka heli karnaa sida marka wax loo yaqaan strawberry waxaan ka heli karnaa marka muuski waxaan ka heli karnaa looski waxaan ka heli karnaa marka qumbihi waxyaalahaas oo dhan ayaa laga heli karaya vitamin P9 waxaan naqaanaa folic acid vitamin P9 is also known as folic acid ama waxa loo yaqaanaa folicin ama folate inta magaciisa askale it's a water soluble vitamin oo vitamin kale biyaha ku milmo folic acid is required waxaan u baahnaa for the synthesis samaysanka la sameeyo marka la sameysanayo nucleic acid ka DNA RNA waa very important wuxuu qayb lixaad u ka qaataa oo kale uga baahanahay normal formation of red blood cells and other cells wuxuu vitaminkan muhiim u yahay oo kale sida caadiga ah marka unugyada dhiigga cas la sameynayo ayaynu u baahnaa tusaale ahaan marka loo baahan yahay in dhiig la sameeyo waxa la yiraahdaa waxa loo baahan yahay marka bone marrow dhuuxi inuu shaqeynayo waxa uu u baahan marka nutritionka marka cunooyinka u baahan waxa ka mid ah vitamin B12 iyo folic acid iyo iron in la hela marka kuwaasi iyo dhuuxa oo shaqeynaya marka vitaminkan wuxuu aad muhiim ugu yahay marka in la sameeyo DNA RNA iyo waxa loo yaqaan marka qayb kale oo sheegi doona vitaminka shaqooyinkiisa waxa kamid ah combination with vitamin B12 bay ka wada shaqeynayaan waxay muhiim u yihiin sameynta la sameeyo unugyada dhiigga cas iyo weli maturation ka qaangaar inuu marka iyada uu qaangaar RBC formation for RBC nerfiga oo kaleeto it's necessary for growth and diffusion for all cell body nerfisku wuxuu muhiim u yahay koritaanka sameynaya iyo qaybsanka cell body-ga oo body cells-ka ay sameynayaan
hair and skin ki maqaarka cidiye kale it's essential for the health of the skin and hair wuxuu muhiim u yahay vitamin B9 ka caafimaadka maqaarka iyo waxa loo yaqaan timaha pregnancy xilliga uurka it's important waa muhiim nutrients nafaqadan for the pregnant woman and her developing fetus folic acid waa muhiim folic acid ka muhiim waxa loo yaqaan gabadha uurka leh iyo ilmahaba folic acid improves the lactation حتى hooyada nuujinayso muhiim hadaba muxuu muhiim u yahay folic acid kan wuxuu ka qayb qaataa hadii uu jirka uu ka yaraado in ilmihii yaraa uu neural tube defect in neural tube ku sameysma xilliga embryogenesis ka lagu organogenesis lagu guda jiro first trimester ka ugu horeeyo in uu marka neural tube ka xidhmi waayo kadibna halkaas waxa ka baxa ka dhaco spinal fida ilmihii yaraa in uu xagga dambe ee laf dhabarta marka ayada uu waxa loo yaqaan oo marka uu ka duleesho marka nooca spinal fida loo qaybo marna closed marna open in mar uu dibadda xandulihi oo dhan dibadda u soo baxo marna dushu ka xiran laakiin inuu soo baxay ayaan arkaynaa okay DNA synthesis waa muhiim uu ka qayb qaataa homocysteine metabolism ka qayb qaataa homocysteine in methionine loo bedelay muhiim u yahay neurotransmitter formation ki iyadana uu ka qayb qaata vitaminka cunooyinka inta badan laga helo it's present in the liver ka waxa laga helaa wax loo yaqaan beerki hilibki waxa laga helaa marka beedki caanihi fruits qudrada qaarkood cereals miraha qaarkood baa laga heli karaa liver vegetables qudrada cagaaran hadii overcook lagu sameeyo oo waxa weey in badan dabka loo daayo oo kale to folic acid ka uu dhintaa waxa halka ku soo dareena wax loo yaqaan folic acid ka wuxuu muhiim u yahay gabar kasta oo markaas maadaama in garan kareen wax loo yaqaan maadaama in garan kareen xilliga gabadha ay uurka ay qaadayso kaleeto in folic acid ka iska isticmaasho mar walba meelaha qaar WHO guideline waxay ku sheegaan in inta hadii mar ay qangaar ay noqoto iron ka ama folic acid ka sidiisaba inay iska isticmaasho ayaa uu wanaagsan baa la yiraahdaa megaloblastic cells anemia folic acid ka hadii uu yaraado jirka waxa ka dhici kara megaloblastic cells anemia in marka ayada cells ki ay marka dhiglaanta nooc loo yaqaan in unugyadii marka ay weynaan taasoo meesha ay ka baxday waxa loo yaqaan samaysinka ay samaysmay DNA ayaa meesha ka maqan qofka waxaan lagu garanay dhaariyo shumbu yeelanaya weakness qofka awoodari fara badan baan ku arkaynaa irritability qof inuu care ka muuqanayso markaas waxaan ku arkaynaa folic acid deficiency red and sore tongue inuu carabka casaado oo markaas uu qofkii uu xanuuno marka kaar u yeesho increased blood homocysteine levels dhiigga aan ku arkaynaa homocysteine levelka inuu aad ugu badan yahay sababtoo ah methionine metabolismka la bedel lahaa ayaan jirin neural tube defects bay ciyaalka ay ku dhalan karayaan carruurta qaarkood low birth weight miisaankooda inuu yaraado increase risk of heart disease qofkii waxa kordhaysa ilmihiisa qatarta oo marka ayada xanuunada xagga wadnaha kaleeto ayaa ku kordhi karay inuu wadnaha isku duleeshamo oo kaleeto neural tube formation defect ayaa ku dhici karaysan soo sheegnay maalintii qofku waxa looga baahan yahay inuu hooyada uurka leh 500 micrograms inay qaadato gabadha kaleeto waxa looga baahan yahay inay 300 ay qaadato marka nuujinayso kuwa kale caadiga ee marka dumarka ciyaal kaleeto 100 wax ka yar ay maalintii u baahan yihiin way vitamin B12 ama loo yaqaan cobalamin according to the present evidence this vitamin is found only in animal products according to the present evidence hadda marka waxa jira research la sameeyay researchkaas inagu eegayno researchada caalamka research hadda jeer la sameeyay researchadaas waxa lagu ogaaday in vitamin B12 laga kaliya laga helo marka oonta xoolaha in laga helo red blood cells it is essential for production of RBC wuxuu vitamin B12 kan muhiim u yahay unugyada dhiiga cas in la soo saaro ayuu muhiim u yahay wuxuu kaloo muhiim u yahay xagga neerfaha ayuu muhiim u yahay improves concentration memory and balance wuxuu kor u qaadaa qofkii in wixii concentration marka uu focus garan karayo oo wixii uu kala garan karayo xagga xusuusta xagga isku dheelitirnaanta qofka marka balance oo xagga maskaxda iyo cerebellum shaqadeedu qayb ka yahay it's important for the metabolism of fat wuxuu muhiim inuu yahay kaleeto in jirka uu tamar kala soo bixi karo la burburin karo marka dufankii iyo sonkortii iyo proteinkii iyo folic acid ka naftirkiisa it promotes wuxuu kor u qaadaa marka growth koritaanka qaata vitamin B12 wuxuuna kor u qaadaa umateedka increase waxa loo yaqaan appetite marka qofka marka cunadii mahashada cunada maraytaanka
vitamin B12 waxaan ka heli karnaa marka liverkii beerkii waan ka heli karnaa kidneyga ayaan ka heli karnaa marka beerkan ka heli karnaa kaliya baan ka heli karnaa kalluunka baan ka heli karnaa caanihi baan ka heli karnaa caanihi ayaan ka heli karnaa hilibka ayaa laga heli karayaa marka vitamin B12 wuxuu muhiim inuu yahay marka oonta xoolaha inaan ka helno haddii uu jirka ku yaraado red blood cells are abnormally large and are reduced in number unugyada dhiigga cas aad u waaweyn tiro ahaana yar ayaan arki karnaa deficiencyga yaraanshiyihiisaas vitaminkan wuxuu sababayaa dhiig la-aanta nooca u naqaano marka pernicious anemia that's different from types of other anemia taasoo ka duwan waxaa loo yaqaano noocyada kaleeta dhiig la-aanta ah marka pernicious anemia ayuu keeni karaya marka vitaminka dhowr qaab buu u yaraan karayaa pernicious anemia ee ku dhici karta marka nutritional ama dietary qofka cunada uu qaadanaya hadiisan ka qaadan uu yaraan karayaa mar cunada uu qofku ka qaata laakiinse waxaa jirto intrinsic factorka uu ku dhegi lahaa ayaansan jirin marka iyada la soo saareen markaa wuu jiraa bacteria laakiin caloosha ku badatay oo taasaa keeni bacterial overgrowthkaas ayaa keeni karta oo cunayso mar vitaminka uu yaraan karayaa haddii ilyamkii laga absorb garay laga nuugayo kale qofkii laga gooyo oo kale qalliin oo gala marka siyaabo badan buu ku yaraan karaya inaga laakiin hadda waxaan focus ka saaraynaa haddii afka qaadashada xagga dibadda ku qaadan lahaa ay yaraato stomatitis marka inflammation xagga marka afka ah ayaan qofka ku arki karnaa afka xanuunayo markaasi carabkii waa casaanayo lack of appetite qofka wuxuu noqonayaa vitaminka ku yaraado waxba ma cuni karayo qofka marka xagga rabitaanka ama mahashadi poor coordination kale qofkii in walking and mental sub qofka sidii marka xagga socodkii iyo xagga maskaxda labada dhibaato ka soo futsaars vegetarians who eat no animal products develop vitamin B12 dadka vegetarianka ah oo qudrada uu cuno aan cunin waxa loo yaqaan oonta xoolaha kuwaas oo kale 20 jirka 30 jirka markay gaaraan waxaa ku dhacaysa deficiency ayaa ku iman kara ugu dambeyntii vitamin C ayaynu hadda ka hadlaynaa ascorbic acid baa loo yaqaana vitaminkan ama antibiotic vitamin baa loo yaqaana the most active reducing agent waa nooca marka vitaminada nooca ugu wanaagsan kaasoo hoos dhiga jeermisyada qaarkood inay jirka marka ay ku dhashaan oo kaleeto jirka markuu jeermisyada qaar ay soo galaan oo kaleeto ayuu ka hortagaa sababtoo ICD xaggan kor u qaadi karaya xaggan kala difaacina kor u qaadaya it's powerful antioxidant wax aad muhiim iyo sunta jirka ayuu ka saaraa synthesized by most animals inta badan waxaa laga helaa dhammaan inta badan inta ugu badan way samaystaan marka waxa loo yaqaan animalska dhammaantood way samaystaan laakiin human being ma samaysan karaya human being ma samaysan kara laakiin animalska intooda badan way samaystaan vitamin C laakiin humaniska iyaga ma samaysan kara inay cunada ay ka helaan vitamin C shaqooyinka loo qabto waxaa ka mid ah wuxuu aad muhiim ugu yahay collagentii marka iyada ayuu muhiim ugu yahay oo kaleeto in la sameeyo wuxuu joogtaa oo kaleeto oo muhiim uu noogu yahay bones and proper function of adrenal and marka thyroid gland in si fiican ay marka lafiha kale ay u shaqeeyaan lafiha adkaadaan si fiican u shaqeeyaan waxa loo yaqaano adrenal glandka marka waa qanjirka kelida dusheeda ku yaala iyo thyroid glandka marka qanjirkan waxa loo yaqaano thyroid inay si fiican u shaqeeyaan hormoneskooda si wanaagsan u soo saara waxaan hor u soo sheegnay in antioxidant iyo sunta jirka uu ka saaro oo ka hortago wuxuu kale oo caariyaa in noola sameeyo immune functionka shaqadii marka difaaca wuxuu kale la dagaalamaa bacteriyadan marka infectionska germska marka bacteria u naqaano xanuunada keeno xanuunada faafa ama isu gudbiyo wuxuu hoos u dhigaa marka iyada saan soo sheegnay allergic marka qofka in waxyaalaha xasaasiyad ku noqdo jirkiisa uu marka qeyr caadi uga jabciliyo hoos uu yareeyaa wuxuu kale oo ilaaliyaa vitamin A iyo E iyo B complex dhammaan isaga ayaa marka iyada ilaaliya vitaminkan from oxidation key stimulates the production of red blood cells inuu wada dhiig cas la soo saaro ayuu qayb u ka yahay inuu qayb ayuu muhiim ka qata vitamin C ga waxa unstable and easily destroyed inta badan vitaminkan uma adkeysan karaya kulka si inta kulka uma adkeysan karayo haddii kul fara badan marka iyada uu arkana inta badan waxa weeye wuu burburaa oo si fudud ku dhiman karaya food lose almost half of their vitamin C content with the cooking cunada marka la kaliyo karo boqolkiiba content vitamin C da way ka dhimataa vitamin C also helps in absorption and storage of iron vitamin C wuxuu naga caawiyaa waxa loo yaqaan inuu cunadii inay soo nuugi karno
cunadina kala soo bixi karna iron tan kasoo nuugi karna waxa kale loo yaqaan inay iron tan keedsan karno marka vitamin C oo kale shaaha madow kale marka cabayno oo kale hoosbo iron absorption shaaha soo kale hoos u dhiga waxa kor u qaado waxa loo yaqaan liin dhanaanta iyo waxyaalaha la midka oo kale marka hada waxyaalaha cunooyinka qaar oo qofka uu cunayo oo kale وكدبنا وشاه بيجاس كعب ايرون سيده هذا بيرك او كلاته سيده كليه كله waxay iron laga leedahay fit aad shaah bigays ku cabto kaleeto absorption kooda hoos buu u dhacaya laakiin hada fit waxa loo yaqaan vitamin C sida liin dhanaanta waxa loo yaqaan liin macaanta waxyaalaha la midka aad ku cabto waxa absorption kooda si fiican looga faa'iideysanaya sagaalka shaqo ayuu muhiimka inoo qabta waxa loo yaqaan ayuu inoo qabta vitamin C haday soo koobna in beerkii wuxuu naga caawiyo beerka jirka sunta ka saaro wuxuu naga caawiyaa wax loo yaqaan unugyadii in suntii dhaawic lahayd inuu ka hortago wuxuu kor u qaadaa andran glanka iyo waxa loo yaqaan iyo thyroid glanka iyo caafimaadka guud ee jirka kor buu qaadaa wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan wuxuu kor u qaadaa nitrous oxide function ki shaqadii marka xididadii oo kale inaysan jilcin marka gidaarka xididada oo kale xididada dhiig oo kale inaysan jilcin wuxuu inaga caawiyaa inuu jirka markuu dhaawac soo gaaro markiiba uu bogsiishiyaha jirka ayuu qayb muhiim ka qayb qaata wuxuu joogteeyaa oo si fiican loo soo saaro oo ku filan waxa loo yaqaan neurotransmitterski wuxuu inaga caawiyaa oo kale inuu hoos u dhigo inuu jirka uu ku ururo waxa loo yaqaan marka metalski inuu ku ururo marka biriin jirka urura wuxuu kale inaga caawiyaa oo ka hortaga oo burburiya unugyada sabab kale kansarka wuxuu inaga caawiyaa gluten induced inflammation ka bilaab lahayd marka waxa soo dhan buu inaga caawiyaa diet resource cunadan ka heli kara vitamin C waxa kamid ah found in fresh vegetables khudradda marka fresh ka heli karna iyo citrus fruit iyo marka cunooyinka marka liinta vegetables and fruit should not be left soaked in water for a long time since it is soluble in water marka khudradda iyo marka miraha qaar kood biyo in laga dhex tagi karin hadii biyaha in badan ay ku dhex jiraan vitaminka waa water soluble u yahay ka bixi way ku milmi karaan ka bixi karaya cooking itself destroys about half of vitamin C present in food cunada kale hadii la kariyo oo kale waxaan ognahay cunada khudradda fresh in lagu cuno sida saytuunka kale sida liin dhanaanta sida liin macaanta kuwaas kale in lagu cuno hadii la kariyo ama waxyaalaha qaar ay soo maraan markii way ka dhiman kartaa the best way to make sure for regular intake vitamin C is to eat raw fruits and salad every day habka ugu wanaagsan qofka uu ku xaqiijin karayo inuu vitamin C intii heerka inta u baahnaa inuu maalinta u ka cuno oo kale si aysan oga lumin waa inuu cunaa marka khudradii iyada uu ku cunayo marka qayrin ah yani iyadoo dabka aan la gelin la karkan sida marka liintii saytuunkii sida babaaygi sida waxa loo yaqaano liin macaantii liin saladkii waxyaalahaas oo dhan qofka inuu ku cuno iyagoo marka fresh aan wax dabcan soo marin vitamin C source laga heli karayo aniga vitamin soo gaabinay marka waxyaalahan oo dhan ayaa laga heli karayo marka qudradahan kala duwan oo dhan ayaa markaasi ayuu qani ku yahay oo laga heli karayo vitamin C hadii vitamin C uu jirku yaraado waxa la war kara iskaafi marka waxaan ku arki karnaa wax loo yaqaan cirid dhiig oo kale in ciridkana dhiigo oo qodmo oo wax loo yaqaan ilkiina ay soo daataan fragile marka taasan ku arki karnaa marka fragility of blood vessels inay jilcaan waxa loo yaqaan xididadii dhiig marka gidaarkooda kale inuu jilco sababta nitrous oxide ki oo construct ilaalinaysa ayaa meesha ka baxay easy bruising and hemorrhage jirka kale loo taabto wuu iska baagan madow uu noqon karaa marka dhiig roor ayaan ku arkanaa dhiig bax markiiba nabarrada kale oo poor healing box ka nabarrada kale hoos u dhacaya qofku wuxuu dareemayaa kaar xagga lafaha iyo muruqyada lafihi way jilcayaan dentin formation ki ilkiyo kale sameysay marka maadada dentinka kale ayaa meesha ka baxaysa compressed immunity qofka difaaciisa hoos ayuu u dhacaya kadib qofku wuxuu dareemayaa daal wuxuu dareemayaa caajis qofku wuxuu dareemayaa jirxan waxyaalo badan noocaas do you know studies show that large dose of vitamin C intake hadii qofka daraasad ayaa waxay sheegaysaa hadii xaddi badan oo vitamin C oo qofka uu qaato ugu yaraan 500 mg ama in ka badan maalintii have the ability to prevent disease such as chronic heart disease, cancer, stroke and gout waxay ka hortagi kartaa
inuu qofka xanuunada noocan iska difaaca sida xanuunada ku dhaco wadnaha weliba coronary heart disease markaa xididada waraabiyo wadnaha oo xinjir ay xiri lahayd kow kansar inuu ku dhaco faalig inuu qofka ku dhaco iyo xanuunka goodka loo yaqaano inuu ku dhaco waxyaalahaas oo dhan ay ka hortagaan to obtain 500 mg vitamin C daily you require si aad u hesho maalinta 500 oo markaa waxa loo yaqaano miligram oo vitamin C waxa loo baahay in kuwan markaa aad ka cunto inuu qofka oranjadii markaa iyada uu qaato limaanti linanaanti strawberry markaa iyada waxa loo yaqaano waxyaalahaas oo dhan inuu qaato ayaa maalinta kaga filan this waxay sheegeen markaa uu naqaan iskaafi qofka ciridka dhiigaya uu qodmaya cad baa ka baxayo carabkii kale qofka waxaan ku arkay nooc saado oo nabara u ku sameysmo ilkii marnuu iska daadanay waxaan soo sheegnay uu naqaano ay u soo bixinay loo yaqaano inuu qofkii uu sameeyay bruising oo kale easily qofka inuu ku dhiig bixi karayo oo kale okay maalinta qofka wuxuu baahan yahay 7 ilaa 9 mg marka ayaa u baahan yahay wax loo yaqaano man to woman children ka 40 ciyaalka 25 gabadha marka uur kale ama nuujinaysan ilaa 80 mg ilaa 500 mg way gaarsiin kartaa facts of vitamins marka dhamaan isku wada geeyno waa dhamaan vitamins ko dhan waxay aad ugu nugul yihiin waxa loo yaqaano sensitive to heat marka kulaalka kale u nugul yihiin overcooking ko kale leads to dehydration haddii qofkii oo kale waxa loo yaqaano dabka in badan la saaro kale uu burburi karaya markii uu dhiman karaya kadibna taas waxay keeni kartaa haddii ay fat soluble vitamins deeyin inuu qofka xad badan oo ka qaato smoke excessive intake of antibiotics ko kale haddii antibiotics qaar aan la qaadano antibiotics ka qaarkood aan la qaadano waxay sababi karaan qaarkood in ay la falgalaan oo dhibaato jirka keena destroy useful bacteria in our intestine marka antibiotics ka qaarkood waxay keeni karaan bacteria normal flora mindhicirka kale ku jirta inay dhimato kadibna sidaas vitamin B12 deficiency ka iman karaya waa heerkii aan soo sheegnay darajada 3 consume highly polished rice briska aad loo karkariyo la burburiyo oo kale haddii aynu isticmaalno kale kaas oo kale wuxuu keeni vitamin B1 deficiency ayuu keeni karaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkaas uu lecture-keena ku soo dhamaaday vitamin-ga ahaa iyo dhamaan cunooyinka marka waxaan hadda ka soo gudubnay nutrition-ka cunooyinka soo gudubnay hadda malnutrition-ka waxa kadib ay gali doonaa insha Allah malnutrition-ka wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaano waa practical inay xanuunada intay dhigano miisaankii qofka sida loo cabriyay sidii marka muwaagi marka waxa u baahnaa taasi shaqo dheeraad insha Allah waynu ka soo dibadda ka soo sheegi doonaa course-kaas inta dhamasay ku qaadan karno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي سؤال ميلها فهم ويدان ويسوي دين كرتان إن شاء الله تعالى